ay ku nooshahay family haddaad tahay inaad ku noolaan karaysid haddaad caafimaad u imanaysid aad ku noolaan caafimaad aad ka helaysid haddaad dalxiis tahay aad ka helaysid haddaad arday tahay lacagta aan kuu soo sheegay baa kugu baxaysa ama master ama degree waxay doontaba ha noqoto noloshaadii jaamacad alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawow waa Duxul Media halkan naga daawanaysid waa Dr. Maxamed Olol waxaan idinka jawaabi doonaa haddii lahayd barnaamij waxbarashada oo Malaysia baynu maalin ka hadalnay marka waxaynu maanta eegi doonaa haddii lahayd si guud jawaabihiina ama su'aalaha ay soo weydiisan haddii lahayd nolosha Malaysia marka waxaynu eegi doonaa haddii lahayd xaggii waxbarashada nolosheeda oo qofka ardayga sidoo ugu noolaan karayo ama familka kirada guryaha kale xaggii waxbarashada jaamacadda iyo haddii markaa ganacsi uu ka jiro Malaysia oo meel nooceeya ama arday hadda tahay ama ganacsade ama ardayga inteeba ku filan baynu eegi doonaa haddii lahayd idmo marka soo dhawow intaas aynu ku qaadaa dhigi doonaa haddii lahayd idmo haddaad nagu cusub tahay fadlan barnaamijkan like saar si asxaab kale ay su'aalahan oo kale u helaan subscribe-tana nagu soo bir insha Allah ta'ala muuqaalkana wuxuu noqon doonaa haddii lahayd inuu YouTube ku jiri doono dad badan ay ka faa'iideysan doonaan haddii lahayd muddooyin kadib uusan ahaan wax hadda kaliya laakiin sanado badan oo soo socdo xitaa kuwa hadda dhalan doona baan ilaahay ka rajeynaa inay ka faa'iidi doonaan haddii lahayd waxa kale isbedelaya uu noqonayo qiimaha haddii lahayd marka soo dhaw hadda aad nagu cusubta insha Allah ta'ala markaan eegno wadankan Malaysia waxa ku yaala koonfur bari Asia oo wadamadan Asia buu ka mid yahay 30 milyan ka badan oo qof baana ku nool wadamada xagga waxbarashada ugu fiican caafimaadka iyo dalxiiskuba intaba u yimaadaan dadka ajaanibka ay Soomaalidu ay ka mid tahay wana meelaha aadka ugu quruxda badan ee loo yimaado mar walba hadda barigeedu waxaaba yar saameysay xanuunadan adeerta jira ee caabuqan markaynu ka hadlayno Soomaalida ku nooli Malaysia waa 3 qaybood baynu kala dhigaynaa haddii lahayd waa arday oo qaybta ugu badan oo dhowr kun oo arday in ka badan baa moogtahay joogta 4,000 in ka badan oo tiro dhaafayso arday baa joogta dad family oo caadi u degan jira oo qaxoonti ahaan ugu jira iyo kuwa caadi iskaga degan iyo dad kale oo socota iyagu oo caafimaad u yimaada iyo dalxiis waxa kala soo raaco dad ganacsiyo oo ka ganacsada wadankan oo alaab ka dhoofiya intaas isugu jiraan Soomaalida laakiin waxaynu hadda focuskeena noo saarayna haddii lahayd noloshaas kala duwan ee Soomaalidu ay ku nooshahay marka laga hadlayo arday aad tahay ama aad doonaysid inaad ku noolaato wadanka Malaysia ama aad qoys doonayay inaad u soo guuro tahay ama qof ganacsi ka furanaya maxaad doonaysaa ama maxaa lagaaga baahan yahayna waynu eegi doonaa haddii Ilaahay idmo aynu barnaamijka dhamaadkiisana isla gaadhno taladana waa idin ku dari doonaa haddii Ilaahay idmo khibradayda inta aan wadankan adigu aan ku noolaa saan idin sheegay waa koonfur Asia waa dad Asian waa dad yar oo gaagaaban inta yar oo caadi inta badan aad wada aragtaan meelaha TV-yada oo dad inta badan iska soo dhaweyn leh aan buuqana ma ogtahay aan jeclayn dadkoodana jecel iyo wadankoodan ardayga inta badan waxa ugu badan hadaynu niri waa arday 4,000 ka badan ayaa joogta waxaynu eegaynaa ardaygaasi laba qaab ku yimaada inta badan inuu waxbarasho jaamacadeed oo jaamacadii ama uu ku yimaado ama uu markaa luqad uu ku yimaado labadaas ugu muhiimsan inta badan jaamacadahana waxay u kala baxaan waa public iyo private Soomaalidu inta badan hadda wax iskaga badan tahay jaamacadaha private-ka oo waxyaalo ay markaa ku yar xiiseeyaan baa jirta laakiin public-kana arday badan ayaa dhigata sidaynu tiimaantii dhawadeenu booqanaynay oo kale oo kana jaban waynu isbarbar dhigi doonaa iyagana haddii lahayd marka inta badan ardaydu waxbarashada u yimaado waa inay luqad u yimaadaan ama ay waxbarashada jaamacadda heerarkeeda kala duwan ee masterta ama degree-ga ay u yimaadaan ayagu inta badan ardayda waa qaybta ugu badan ee ardayda u yimaada ardaygu markaa inuu wadanka secondary ku soo dhameeyo kadibna halka uu yimaado degree-giisi jaamacadii kala duwanaa intuu u yimaado iyo inuu markaa master u yimaado labadaba way dhacdaa iyaduna inuu mar walba u yimaadaan iyo kuwa luqadaba u yimaada inta badan ardayga doonaya inuu degree ka bilaabo waxa looga baahan yahay inuu secondary-giisi soo dhameeyo kadibna uu doorto faculty-ga uu doonayo jaamacadahana uu kala doorto haddii lahayd public iyo private
waxyaalaha ku kala fiican yihiin waa idiin sheegi doona insha allahu tacaala. kadibna waa halka aad waa marka ardayga digriiga tahay wax kaloo soo raaca waa waxa la yiraahdo masterkii. qofka masterkaana mar walba inta badan isagu iska furfuran yahay oo qof wax raadsan karaya, kaasina jaamacadaha private iyo public labada uu ku biiri karaya. marka haddaad arday tahay oo secondary soo dhamaysay, shahaadadaadii, baasaboorkaaga waxa oo dhan ku dhamaystiran yihiin dalka Malaysia, marka waad soo xareysan karaysaa. fiiseedu waa bilaash weeyaan, laakiin haddii lagaa caawinayo waa laga yaabaa in qof arday ama qof kale marka ehelkaaga jooga uu kaa caawiyo, ama aanu kaaba caawin karayno annaguna haddii ilaahay idmo. marka halkaa laga yimaado waa privateka iyo publicaas. inta badan jaamacadaha publica baan ugu idhaahdaa ardayda kale way ka fiican yihiin, way ka jaban yihiin xagga nolosha. badankooduna waxay ku yaalaan gobolada, oo marka la isbarbar dhigo noloshii caasimadda iyo gobolka jaban. marka waxaan idhahdaa ardayguna jaamacadda publica aado, xagga aqoonta way ka fiican tahay, xagga moogtahay aqoonsiga ama creditka marka meelaha aadina aad bay uga fiican tahay. waxbarasho ahaan iyo fiigina way kaaga jaban tahay, noloshii kalena way kaaga jabnaanaysa. marka inta badan jaamacadaha dawliga ama publica baan idhaahdaa moogtahay aada, qofkuna isaga markaa choicekiisa leh. jaamacadaha iyo publica iyo dawligu laba waxaa leeyahay, privateka iyo publicu labadaba isku maadooyinku way bixiyaan, maado walba waad ka helaysaa. kaliya waxay ku kala duwan yihiin jaamacadaha la yiraahdo publica inta badan waxay ku yaalaan 90% gobolada, oo ardaygu inuu gobolada aadaba moogtahay dhacaysa. marka public waxay faa'iido u leedahay ardaygu markuu jaamacad public uu soo xariisto, xaggii qarashka way ka jabnaanaysaa, oo mar walba qarashkii uu ka jaban yahay. oo xaggii jaamacadda oo laga yaabaa way kala duwan yihiin qarashkii jaamacadaha lagu kala dhiganayay, oo laga soo bilaabo degree ilaa master. marka mar walba jaamacadda publica baa ku jaban. noloshii kalena waxaa ku jaban gobolka, oo markaad ku nooshahay gobolka way ka jaban tahay caasimadda. privatekuna inta badan magaalooyinka waaweyn buu ku yaalaa, magaalada weyneedna way ka qaalisan tahay, xaggii fiigii jaamacadda lagaa qaadayeyna way ka qaalisan tahay. marka halkaasi ku kala duwan yihiin, mar walba adoo ku xisaabtamaya dhaqaalahaaga iyo mar walba xiisada aad doonaysidba. marka saasay ku kala duwan yihiin publica iyo privateka. marka aad doonaysa iyaguna arday inaan idinka jawaabo baan rajeynaya haddii ilaahay idmo. waxaa jira xagga nolosha ardayga maxaa ku filan. sidaynu hore usoo sheegnay, magaalada weyn iyo gobolka way kala duwan yihiin. haddaad gobol ku nooshahay nolosha aad bay u jaban tahay. ardayga waxaa laga yaabaa 200 ilaa iyo 300 wax ka hooseeya inuu ardaygii markaa ku filnaado gobolka joogay. oo waxyaalo inta badan yar qaali, noloshu iska yar jabantay, laakiin kirooyinka yar qaali oo kirada keenaysa ardaygaasi aad bay ugu filantay markaad gobolka joogto. $250 ilaa 300 inta u dhaxaysa haddaad gobolka joogtid. caasimadda haddaad joogtidna 250 ilaa 300 way iskagu filantay. laga yaabaa in $50 oo dheeriya haddii markaa nolosha ardayga la xisaabinayo, laakiin in ka badan arday isticmaasho baa jirta, in ka yarna arday isticmaasho baa jirta. laakiin mar walba gobolka aad joogtid way ka yaraanaysaa qarashkaagii, laga yaabo inaad 250 qofna aad la sheergaraysid. waxyaalaha inta badan qaaliga ka dhiga ee waxbarashada Malaysia qaaliga ka dhiga waxa weeyaan waa xagga kirada guryaha. oo gurigii laga yaabo 4 ka koobnaa in lacag badan qofkii laga qaado, kadib inta badan ardayduna way sheergareeyaan. waxa laga yaabo lacag badan inay kaaga baxdo guriga kiradiisii. gobolka markaad joogtid oo kale way ka jabantay guryaha kiradoodii, caasimadii iyo goboladii waa dareemi karaysaa way kala jaban yihiin. marka qofka ardayga wuxuu sameynayaa inuu keligii dego, qarash badan baa laga yaabaa in $300 aysan waxba uga soo hadhin markaa noloshiisii, cuntadiisii, basraaciisii iyo kiradii. laakiin hadduu qof la sheergareeyo oo ardaydu laba u degan yihiin, waxay sameynayaan lacag fiican baa markaa uga soo hadhaysa uu noloshiisii ku maareyn karayo haddii ilaahay idmo. waa la wada degaa ardayda. wax kala soo raaca ardayda kuwa hostelka taga jaamacadda ayagu way ka yar jaban yihiin. ardayga dhaqdhaqaaq si baan la ogolayn, laakiin markaad hostelka jaamacadda dhex tagtid noloshu way kaaga jabnaanaysaa, deegaan waxbarasho baad iskaga jiraysaa. marka iyaduna faa'iido ay ku leedahay haddaad arday tahay. marka nolosha lacagta ku filan ardaygu waa taan idiin soo sheegay, oo ardaygu intaas oo qarash ahaan ku filan. haddaad tahay family markaa ku noolna, inta badan caasimadda ay familiyadu ku nool yihiin, way soo guuraan kuwa dibadda ka yimi iyo kuwa Soomaaliya ka yimi. marka familku haddaad tahay arday markaa hooyo ama aabe qurbaha ka yimi oo kale way badan yihiin, halkana way joogaan. waxay sameeyeen in carruurtooda wax ka dhigtaan.
haddii caruurtii markaa fiiso lagu siino adiga mar walba fiiso waad helaysaa, noloshina way iskaga kacabnaanaysaa. Guri dhan baa laga yaabaa aduu family inaad adigu iska hesho haddaad family tahay $400 ilaa $500 inta u dhaxayso dhammaystiran aad magaalada bartankeedina ku yaala caasimadan inaad heshid. Marka familiyaduna saasay sameeyaan, ka yimaada dibadda iyo kuwii Soomaaliyaba ka yimaada. Qodobka kale ee soo raaca waxay tahay xagga ganacsiga. Ganacsiga inta badan kuma badna, laakiin waxa ugu badan halka yimaada waa dad meherada yaryar oo ganacsiga ka furta oo qurbaha inta badan ka yimi, oo ama dad la sheer la leh ama iyagu ay furtaan, iyo dad dhoofiya. Waxa ugu badan wadanka laga dhoofiyana waa saliidda, oo saliida aad u fiican oo qaali ah way soo saaraan. Waxaa jira niman kale dhoofiya saliidda oo wadankii iyo wadamada kaleba u dhoofiya oo iyaguna ka ganacsada, oo xagga ganacsiguna fursadaasi ma ogtahay leedahay. Waxa kaloo iyadana intaa soo raaca lagu daraa waa caafimaadkii. Waxay ku jirtaa Malaysia wadamada ugu caafimaadka fiican marka caafimaadka la eegayo. Marka dad badan baa caafimaad u yimaada, xagga quality dawadeedu way fiican tahay. Wadamada Turkiga iyo Hindiya marka loo eegana way ka fiican tahay xagga access-ka, inuu qofku marka dawo fiican helo oo jaban oo marka aad wax badan uga qabata. Hadduu qalliin galayana qalliinadiisa ayadana Ilaahay markaa ku daaweynayana wuu u yimaadaan oo lagu fududeeyaa. Patient badan ama dad badan oo caafimaad doonayana wana soo maraan inta badan u yimaadaan iyaguna. Wax kala soo raaca haddaad dalxiis doonaysid, dalxiiskan aad baa loogu yimaadaa oo qofku meelo dalxiis oo qurux badan buu yimaadaa, lacag yar baa iskaga baxdaa. Fiisaheedu inta badan waa iska bilaash oo wax fiiso lacag lagaa qaadiyo ma leh. Wixii kale qarashka kaaga baxaya dalxiiska ma ahaane, dadka dalxiiskaana wuu yimaadaa. Marka nolosha Malaysia oo koobani waxa weeyaan in ardaydaasi ay ku nooshahay family haddaad tahay inaad ku noolaan karaysid, haddaad caafimaad u imanaysidna aad ku noolaan caafimaad aad ka helaysid, haddaad dalxiis tahay aad ka helaysid. Haddaad arday tahay lacagta aan kuu soo sheegay baa kugu baxaysa, ama master ama degree waxay doontaba ha noqoto noloshaadii. Jaamacaduna way kala duwan yihiin. Dalxiiskuna mar walba wuxuu ku xidhan yahay meelihii marka aad aadaysid oo qof dalxiisaya asaga jeebkiisa ku xidhan tahay. Caafimaadkana waa wadamada ugu caafimaadka fiican ama xagga qalliinka ama daawooyinkaba ha noqoto. Deegaan ahaana Soomaali badan baa degan oo family ah oo qaxoonti ahaan u jooga, iyo kuwo caruurtoodii u soo raray oo iyaguna iska degan oo caadi iyagii caruurtoodiiba ay ku nool yihiin wadankan Malaysia. Waa dad inta badan 3 qowmiyadood baa ku nool wadankan oo laakiin isku hal qowmiyadoo afafka kala duwan ku hadla. Englishku meel walba laga hadlayo, qofka hadduu English fahmi meel walba lagaga hadlayaa. Waa dad adigu inta badan dadka ma dhex galaan, laakiin aan cunsuriyad badan ma ogtahay lahayn, iska faraxsan, iska qosla. Marka waa meel lagu noolaan karo Soomaalidana oo waxbarasho dhinac walba laga jecel yahay. aad iyo aad intii wadankuna burbursan Soomaali badan ay ku nooshahay. Marka insha Allah taala inaad information-ka ka faa'iiday aan idinla soo gudbiyo waan rajeynaa. haddaad wuxuun ka faa'iideen insha Allah taala ilaa khayr ku siiyo. anaga soo ducaadna waa ku soo ducaynaa, anaguna soo bir asxaabtaadana la wadaag insha Allah taala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.